بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أولا إلى سبحانه وتعالى ما تسكله مركل بعض وحن ربع بعض الصحافة تيفيق قرنك دمان صحافة أنا هذه هذا اليوم كنت بالشدة شغلة وهي أنا قيمة بدن وحن ربي إن شاء الله ما أنتنا هل كان كنت كشة كان عدي عقبضة وبحسن وواحد بدن أنك قيلني كتير الدجمة الجبري اللي هي تومك توله هو سماده كما مرهان أرنتاس واحد بدن كنت أنك واغني وعقبضه هذول بالشدة كنت واحد بدن كسول الله بتين أرنتاس أو dhibaatada ugu horeysa ugu daran ee bulshada haysata ay tahay caafimaad darro Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa u awooda bulshada caafimaadkeeda iyo wax walba u baahan yahay Allah ayaa laga helaa laakiin markaan ka hadlayno arrinta bini'aadantinimada degmada Ceeldibir 16 tuulo hoos timaada runtii dhul aad u baaxad weyn oo 100 kilomitir isku weer la oran karo way baa hoos yimaada oo miyi iyo magaalaba leh intaas bulshada ku dhaqan wax bar caafimaad ama goob caafimaad oo ay ku hirtaan ma haystaan haba yaraatee waxa ugu sokaysa goob caafimaad gaalkacyo oo 180 kilomitir u jirta ayadaas oo kharashka ay awoodi karin bulshada aysan iska bixin karin sidoo kale waxa soo wajahay xilliyadii ugu dambeeyay qandhooyin kala duwan ugu darnaayeen shuban iyo qandho kuwaas oo ilmaha iyo runtii aad ugu badnaa dhammaan bulshada saameeyay ayna ka dhalatay nafaqa darro aad u baahsan oo ilmihi xaalad adag ay la gaareen kuwana u geeriyoodeen iyo sidoo kale hooyooyinka uureyda ama nuujisada oo ayaguna caqabado badan ka haystaan runtii oo dhiig bax iyo xaalado kale aad u badan ay soo wajaheen isbeddelka gaalkacyo saakay aan riboodka jeedinayna waxaa ku sugan 5 hooyooyin oo laga soo qaaday Ceeldibir bariye la soo dhaafo la keenay qofka ugu yar lagu shubay 1500 dhiiga oo sababahaas dhiig baxay arrimahaas la xiriir ahaa bilii la soo dhaafay iyo maalmihii la soo dhaafay baa dadka iska daba keenayay sidoo kale waxa ka dhacday degmada Ceeldibir inay ku geeriyoodeen 2 cunug oo ay sababsatay runtii arrintaas shubanka iyo nafaqa darrada aan baraha bulshada la wadaagna waliba soo dhignay arrintaas oo maaragtay xaqiiqadeedii aan runtii cadeynaynay sidoo kale waxa la il daran boqolaal ama kumanaan caruur ah oo magaalada gudaheeda iyo tuulooyinka 16 tuulo hoos timaada iyo baadiyaha area-da ku nool iyo waliba dad waaweyn sidoo kale hooyooyinka aan haysan gooba lagu xanaaneeyo ayaguna aad u xanuunsan hooyada uureyda iyo hooyooyinka nuujisooyinka ayagoo nafaqa darrada iyo xaaladahaas waliba ay jirooyinkaas geeskooda ka gaareen ayagana waa kumanaan waxay gudoomiyaadii ku maasan warbixintaasi waxa jira deegaanka Ceeldibir inay ka shaqeyn jireen hay'ado ka shaqeeya dhanka caafimaadka hay'adahaas xaggee ay ku dambeeyeen hay'adahaas hadda wax ka shaqeeya hawa yaraatay Ceeldibir ma jiraan oo hay'ada MCH ugu dambeeyay waxa gacanta ku haysay Mercy USA waxay ka baxday 28 bishii labaad ay ku dhamaatay 28 bishii labaad gabagabadeedii bay ka baxday kumana soo noqon ilaa bishii labaad ilaa maantana wax goob caafimaad ah oo Ceeldibir ay haystaan ma jirto intii ka horeysay ee Mercy ay gacanta ku haysan bulshada shaqada ay u haysay wax badan baa cabasho ka muujinay oo aan gaarsiinay wasaaradda caafimaadka iyo meel walba annagoo dhaliil weyn ka qabnay runtii shaqada Mercy ay gacanta ku hayso haba ahaato ayadii waa meesha guud ahaan ka baxday marka laga reebo dhaliisha ka macnaha dhaliishan waxa wala jeedaa baahida caafimaad ee meesha ka jirta iyo adeegay bixinaysa oo aan mid iska afin kara aad buu maasanta sax weeye shaqada ay hayeen waxaan oran karnaa bulshada 10% ama 5 kama dabooli karin shaqada ay hayeen sidaa daraadeed waxaan ku dhawaaqaynay shaqada ay haysan bulshada waxba kama qaban karto ama ballaariya ama cid kale u madax baneeya in la wadaago baahida ka jira deegaanka in ku filayn waxna ka kaafin karin وقت مركز وزارة عافمات كجلمي يا هيا كوش قال لك عافمات كمل حرتين وأنا لحرينا وزارة عافمات كجلمي واحد مربوط وجارسيني عباشدي كوباد وأنت ميرسي كبحين وحس لو ذاقني مدح وزارة إن أرنت ميرسي شغالة أي حيصو أي سنبرشة كوف اللين باهدي دنا الدبوري كريم كدي مركي كبح علي سيدو كري وحن سوق الدنيا
riboodyo aad u xanuun badan oo ay ka mid ahayd wasaaradda federaalka Soomaaliya dadka socday iyo waliba galmudug qayb ka mid ah inay Ceeldibir tageen Dr. Bashiir Liyaado ka socday wasaaradda federaalka Soomaaliya oo la kulmay hooyo dhiig baxaysa oo la joojin waayay dhiigii HB-geedana oo marayo 5 wax ka yar arrintaas wasaaradda caafimaadka waa soo gaarsiinay runtii qaylo badan baa soo dirnay madaxda wasaaraddu waxay ku adkaysatay oo runtii aan u aragnaa nasiib darro inay tahay ilaa hadda kaastarada iyo meel walba inay ku dhawaaqday Mercy baa Ceeldibir ka shaqeyso degan Mercy ay ka baxday bishii labaad Ceeldibir sidoo kale Mercy ayaduna waxay tilmaameen baa leeyahay inay Ceeldibir degan yihiin waxaan rabnaa inaan cadeyno wasaaradda waxaan leenahay mas'uuliyad baan ka saaran bulshada matashaan walaalayaal Ceeldibir 16 tuulo hoos timaada asaguna degmo baaxad weyn oo galmudug ka mid ah weeye deegaankaas ballaaran oo macalimiyigiisa leh wax hay'ad caafimaad oo ka shaqeeya haba yaraatay ilaa bishii labaad ma jirto xabad kaliiniga geey ayadaas waliba cadayn wasaaraddu ay ayadoo og gabadhaas aan hadda riboodkeeda wasaaradda si sax ah soo gaarsiinay isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee galmudug baan soo wacay wuxuu yiri gabar noocaas ah riboodka la soo gudbiyay gudoomiye gabadhaas hal badbaasho hal qaado anna waxaan u sheegay boqolaal la mid ah runtii Ceeldibir taala daafiisana ku nool annaga ka maamul ahaana wax aan ka bedeli karnaa ma jiro karaanka bulshada iyo maamulku intay awoodi karayaan arrintan waa ka baaxad weyn waana dhaaftay sidaas si la mid ah waxa xanuun kale aad ugu qabatay in wasaaradda qayb ka mid ah mas'uuliyiinta u sareysa ay taagan yihiin Ceeldibir caafimaad ba ka shaqeeya waxaan rabnaa cadeyna wax caafimaad Ceeldibir ka shaqeeya ma jirto mas'uuliyiinta wasaaradda oo taagan Mercy ba ka shaqeysan waxaan rabnaa inaan xog siino haday soo xog hayn oo niraano Mercy waxay ka baxday bishii labaad Ceeldibir ka baxday kama shaqeyso ugu dambeyn maxaad ugu baaqi hay'adaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka laftigeeda waxaan rabaa ugu dambeyn wasaaradda caafimaadka galmudug wasaaradda federaalka Soomaaliya ee caafimaadka oo waliba Ceeldibir xaaladiisa si gaar ah ula socoto soo aragtay hay'adaha samafalka ee internationalka iyo NGO-ska ku shaqada leh arrimahaas caafimaadka waxaan rabnaa inaan baaq coddeer ugu jeedino walaalayaal halkaas hadda xaalado shuban baa ka dilaacay ilma u geeriyooday hooyooyinku ayaguna dhibaato gaar ah qabaan waxaan codsanaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala badbaado iskale laakiin midda bini'aadantinimo inaa gurmad degdeg ah u fiidisaan qayla dhaantaasaan rabnaa nagala qayb qaadataan inaan noo dhaga fududaataan aad baan u rajaynaynaa aad iyo aad baan